luulay hadda waxaad ka soo hadashay maxaa la ka dhawaajis waxbarashadaadii iyo waxaas haddii aan u gudbo waxyaalaha ka dhawaajisa lagulana yaqaano waxaa ka mid ah inaad tahay activist arrimaha bulshadana markasta u taagan oo dhexda u xiran lafdhabarka haweenka Soomaaliyeedna waa tahay lafdhabarka ummadda Soomaaliyeedna waa tahay marka waxaan jeclaan lahaa wax yar oo kooban ma noogu soo sheekayn kartaa waxa kugu sababay inaa yacni aad noqotid bulsho u adeege meesha ka soo bilaabatay iyo halka xaalka hadda ay ku marayso marka ugu horeysa aad baad mahadsan tahay amaanta waana rajaynayaa maaragtay bulshadeedu inay runtii aaminsan yihiin inaan daacad u ahay adeega aan isku dayayo inaan bulshada u sameeyo xaguu kasoo bilowday runtii annaga waa soo qaxnay wadankii markii dagaalku ka dhacay colaadii ka dhacday inkastoo aan dhalinyarnimadeedii kusoo qaatay oo fursad qaali ah aan helay waxa soomaalinimadeeda adkaynaya ay tahay wali caataba haddana markii aan qurbaha nimid hamigii aan lahayn in wadanku degi doono hore ka noqon doono hore ka dhici waayey dad waxay baday in nolol aa samaysatid marka sababtoo transit kuma jiri kartid dad badanaa weli ku jiro 30 sano transit laakiin ilaahay wuxuu ii saamaxay aniga inaan transitka ka baxay muddo yar kadibna noloshii aan iskala qabsaday website-yada xataa Soomaalida iyo waxooda ka sheekeynay ma geli jirin sababtoo ah hadaa gasho dhigla ugu tagay iyo hebel dil iyo qabiil hebel waxa ugu tagaysa dareen kicin iyo xanuun moogta amaana iska sii 4 sano ugu horeysay noloshayda marka guri joogtaan ahaa hooyo luqadana barata ilmaheedana haysataan ahaa kadib ayaan waxaan bilaabay inaan dugsi sare ka soo bilaabo halkaas ka gashay moogta marka 2004 ayaan waxaan ka mid noqday 2005 aan dhihnaa anigoo ka mid ah ururka ardayda Soomaaliyeed oo jaamacadda markaas college dhiganaya ayaa waxaa ii yimid yaraan asxaabna wuxuu igu yiri wuxuu ii keenay sawir aad looga naxo oo ilmo yar oo markaas lagu sheegay in laba jir tahay wuxuu ka soo saaray website-yada Soomaalida mid ka mid ah anima ba gelin jirin sababtoo wax walba xanuun aan u arkay ilmaha bura hoosta uga tiili gabar yar ay ahayd waxa ku qoray article-kaas maqaalkaas in laga keenay kalinka shanaad oo aabaheed uu la soo cararay oo isir Soomaalida ha ku caawiso uu keenay muqdishona ayna lahayn qalab caawin kara gabadha marka wuxuu ugu yiri maadaama adiga kalkaalisooyinkii iyo aad la xiriirtid maaragtay ururka kalkaalisooyinkii iyo qolooyinka caafimaadka iga aqoon fiican tahay ma u raadisid tabarruc gabadhan sidii wax loogu heli karo tii waxay keentay inaan la xiriiro marka ururka kalkaalisooyinka laanqeyrta cas hay'ado badan adiga mid walba wuxuu yiri adiga urur ma tahay ma shakhsiga ah socdo waxa lagu yiri hay'ad nimadid urur nimadid wax ma tihid soo anaga shakhsi ma caawino ilaa amarkiis marka waxaan isnaqaynay markaaseeto yarkii oday marka madax ka ahaa dhaqaatiirta aan xuduud lahayn waxaan weydiiyay waxaan ku yiri Patrick arrintaas aan rabaa waxaan la yiri shakhsiga tahay gabadhan way ii taabatay waxaan rabaa inaan caawiyo wuxuu saan wax u qabtaa wuxuu ugu yiri adiga diyaar rabtaa waxaan ku yiri maaragtay waxaan rabaa Soomaali inaan la xiriiro wuxuu ugu yiri meediyaha la xiriir saxaafadda Soomaalida la xiriir anigana tan Norwegian kugu xiraaya tii Norwegian ugu xira maqaalo aad u balaaran 2 bog ah laga soo saaray sawirkii gabadha keegi ciwaankiisa uu ahaa lul oo gabar Soomaaliyeed oo rabta inay badbaadiso gabar Soomaaliyeed kadib waxaan la xiriiray Daynila oo markaaseeto website iyo ahaa berigaana lama isticmaali jirin waqti way ma jirin Facebook iyo waxaas Amazon iyo Baltog iyo waxaas jireen waxaan ku dhahay walaalayaal maqaalkaas oo Soomaali ah asigan ma gelin kartiin meeshiina si Soomaalida ay ula xiriirto waxay ugu dhahan caan ku soo waxayna live adiga umada ula hadal waxa ma qoraynaa marka arrinta u sharax tii waxay ii saamaxday in aan Soomaalidii la hadlo oo linkigi la geliyo Amazon-kii Baltog-kii meel walba oo Soomaali leedahay aan helo saas xiriir ku helo waxay siiyeen oo kale spalt inaan maalin kasta ku qori karo website-kooda waa diraa aniga ayaga geliyaan 7 casho ayaa dadka badan
waxay ahaayeen adi gabadha isku qabiil maa tihiin waxbaa kuu galay kolley su-aashaasaa soo noqonaysa laakiin after 1 week wallahi been makuu sheegaayo qof qabiil i weydiisa ma laha soomaali meel kastay joogto kasoo bilow australia ku keen ilaa maraykanka inta u dhaxaysa ku dar soomaaliya gudaheeda ha noqoto ama ha noqoto carabaha kenya meel aan lacag laga soo dirin ma laha anaana laygu soo wada diray anina shaqsiya aha so waxaan la xiriiray xawlaadyada soomaaliyeed waxaan aad abaal uga haayaa xawlaada la yiraahdo mustaqbal waxay ii saamaxeen inay iyaga lacagta horta haayaan kow labo in ayna wax xawilaad ah ayna ka qaadin adduunka meel kastoo laga soo diraayo lacagtaasna ay norway keenaan kadibna ay u diraan meel alla meesha u diraayo taas waxaan la xiriiray marka dad badan baa marka yiri maxaan kula qaban karnaa moogta groupaa kasoo dhex baxay wallahi mase waxaan xasuustaa wiigagana seexan sababtoo ah reer australia waxay soo kacayaan xilli dadka kale ay jiifteen aniga xilligan seexan lahay meeshu ka dhuma way kuwa maraykanka maraan sugaa intay shaqada kasoo baxaan kuwa australia maraan sugaa intay shaqada kasoo baxaan aniga meeshaan ku dhex dhumay taasna waxay ii saamaxday maaragtay in aan helo xanuunkii ahay inuu iga baxo soomaalinimadii aan aqoon jiray in ay jirto inaan barto qabiilka iyo wixii aan aragnay oon islahaa dadka dhan way ku kala dhunsan yihiin inay yes way jiraan laakiin dhinac kalena wuu jiraa oo ka badbaaday marka horeeto marka qofay aaminaan soomaalida hadday helaan waxaa iisoo baxday in ay diyaar u yihiin inay istaakuleeyaan doorkeena marka waxaan rabnay 30,000 lacag ah 30,000 dollar gacal wiil la yiraahdo oo register ku nool Minnesota ayaa wuxuu la xiriiray Mayo Clinic oo ah caalami boqoradu ay lacagta la baxaan waa anaga markaas waxaan lahayn hataa Mayo Clinic u ogolaado inuu qaabilo lacagtana adinka bixinaysiin fiisada iyaga diyaarinayo gacal ha baxo ha soo qaado cunugti hadhowne waxay joogtaa meel Soomaalida ku badan tahay qarash meel kale ma looga duwanaayo xataa Soomaalida markaas Mareykanka joogto ku filanba ama waxyaala kale xataa loo helaa mar hadday meeshaas timaado maanta so waxay rabtaba ha noqoto arrintaas si aan usoo gabagabeeyey intii ogeyda ogeyd yar shiina la yiraahdo Austria jooga ayaa wuxuu keenay isbitaal ticket wax walba oo free ah anagoo adigu lacag markaaseeto ilaa 15,000 euro xilligaas ah markaas hayno kadib waxay noqotay inaan qoro dadka iraado joojiye lacagta la haayo ha laga tashado wixii free lagu helay gacalna wuxuu yiri aniga marka Kenya aadi maayo soo wadi maayo adiga aad Austria way wiilkaas already Dubai tagay oo soo waday wixii isku xirnay lacagtin marka dood waxa laga gala ah yaa la siinaa marka waxa loo aruuriyay Xaliime Hire gabar la yiraahdo oo 2 sano jirto oo buro ku taalo iyo aabaheed oo la socday gabadha in caafimaadkeeda loo aruuriyay looma aruurin in reer lagu maalgeliyo marka maxaa lagu sameynaa Austrian tagay aabihiyaan la kulmay gabadhiyaan la kulmay kadib reer community-ga Austria ay la kulmeen waxay dhaheen lacagta sida u dhantahay ku wareeji aabaha gabadha ana waxaan ku dhahay lacagtan Soomaaliya ay dhiibatay Soomaalidan dib ugu noqday wada tashi kadib waxa la go'aamiyay lacagta in laba loo dhigo dhig la siiyo sababtoo maalgelin lay noqonaysaa gabadha aabaheed sababtoo caafimaadka kama baxaysa dhigi kaleetana waxaa lagu dabaray wiil yar oo asigana markaas loo helay caafimaad free ah laakiin tigid aan haysanin oo gaalkacyo laga soo wada gaalkacyo Djibouti kadibna Mareykanka meel ahaa la geynay meeshaas horta iiga bilaabatay arrimaha bulshada sababtoo ah hamiga Soomaalinimada iyo Soomaali inay israbto markaan dareemay energy wixii aan awooda aan dib ugu celiyay taas waxa iigu sii xigtay maaragtay ayadana inay ila soo xiriiraan odaya qabiilka aan ka dhashay sababtoo qof walba qabiil ay ka dhalatay qabiilna ceeb ma aha sababtoo diintaaba sheegaysa in qabiilka la isku garto qabyaalada waayo waxa ibtilada ah aanan ka soo horjeedo aanan taageeraynin goorey noqotaba markay ila soo xiriireen waxay dhaheen waxaan rabnaa inaan mideyno Norway bulshada Soomaaliyeed oo ku nool sida aan ku miday karno waxay tahay in xalin khilaafaad la sameeyo la mideeyo dadkii sida aan ku midayn lahayn marka aan qabiilkeena ka bilowno marka qabiilkeena mideyno
kadib aan u gudubno qabiilada kale aniga waa ila qurux badneed kolley markaaseeto ra'yi wanaagsanaan u arkay waan ku raacay ururkaas magaciisa waxaa la dhihi jiray G10 group for peace and reconciliation ama kooxda nabadda iyo dib u heshiisiinta wallahi muddo sanada magac iyo maamuusba ayuu yeeshay afhayeen ayaan u ahaa 2 sano qabiilkaasi horumar fiican buu gaaray kadibna qabiilada kale loo socday intii hawsha lagu jiray laakiin maxaakiimtii dhalatay maxaakiimtii markay dhasheen wadankii dhanka koonfursiiba waxaa ka timid iyo gobolada dhexe in maaragtay nabad la helay xoogaa deganaan timid hami uu yimid tuugadii iyo wax dhicii xoogaa yaraadeen la yiri magaalada muqdisho hala nadiifiyo geedaha baxay hala guro qashinka meelaha buuxa hala jaro ganacsatada Soomaaliyeed ayaa markaa waxay bixiyeen baabuurtoodii ay maaragtay xamulka ma ahane alaabta baabuurta qaado iska rogayaasha la yiraahdo bulshadii magaaladuna iskaa wax u qabsay u istaageen annaga markaas waxaan sameynay inaan lacag ilaa $10,000 ah hadaan qalad xasuusan aan aruurinay reer Norway hadaan nahay siiba ururkaas G10 aan dirno oo laga dhigayay batroolka baabuurtaas sababta baabuurta markay bixiyeen ganacsatada bulshadii meesha joogta shacabkina u soo istaageen iskaa wax u qabsay inay qashin ku guraan annagana waxaan bixinay shidaalkoodii anigoo sida ugu heelan ayaa waxaa timid December waxaa soo galay Ethiopiankii dowladeennii markaas jirtana waa tii baydhabo ka timid oo ayadana timid Jowhar qalalaasaa dhacay maxaakiimtii way kala jabtay Asmaro iyo waxaa loo kala jabay inta marka midnimadii aan ka shaqaynaynay hal maraa ay istaagtay kadib siyaasadda la kala aaday siyaasadda qalaasaha gala dadkana ay wada aadeen anina waxaan jeclaa waxa aan ku dhex jiro in aan u jeedo haba hirgeli weysa hadday rabta laakiin ani waa inay ii muuqato miro dhalkooda haddii hadhowta ay wixii ii muuqdo soo bixi waayaan waa wax kaleeto ma ogtahay laakiin haddayba hadda ii muuqato inay miro dhalaynin ani waa ka baxaa so markii la kala daatay siyaasaddii la kala raacay ani waxaan arkay in aniga enerjiga aan gelinayo meeshan miro dhalka aan ka rabay inuuna kasoo soconin dan waan ka baxay markaan ka baxay waxaan markastaba aan ku dhex jiray ilmahayga iskooladooda waqtiga xooggiisa marka xagga isugu geeyey dugsiga hoose dhexe kasoo bilaab caruurta saddexdoodaba iskoolada ay ku jireen ilaa dugsiga dhexe aan xataa gaaro maaragtay naadiga waalidiintan ka mid ahaa moogtaa inaanba iskoolka dhan guddigiisa maamulka guddiga sare aan u noqdo madax oo wax walba oo la fulinayo aan ahaado qofka maaragtay qalinka ku saxiixaysa maxay maamulaha iskoolkuna uu xog hayahayga ahaa waana fursad aad u wanaagsan ilmahaygana hedidiilo iyo waxay u ahayd horumar aan caadi ahayn iyo xaafadda aan ka tirsanahay waan diidaa inaan bedesho xaafadda aan ka tirsanahay wax kale uma diido jidka aan marayo inkastoo waddan shisheeye aan joogo haddana hadday wax igu gaaraan oo jidka ku dhaco kii aniga dhul ahaan ii yaqaano waa mid inta kale laakiin waxaa badan caruurta igu taqaana ama iskooladii aan ku jira igu taqaana dhalinyaradii iskooladaas dhiganaysay oo igu baratay guddiyadii aan kusoo jiray 3 sano waxaan ku jiro kaleeto maaragta ururka diabetiska sababta gabadhayda ilmahayga u yar oo maanta waa qof weyn oo 20 jir ayaa waxay qabtaa macaanka ayadoo 8 sano 7 sano iyo baray jirtay markii uu ku dhacay masha Allah si fiican ula qabsato taqaano laakiin 3 sano ayaan waxaan ahaa qof matalaysa oo kamid ah naadigaas caruurta u dhaxaysa maalinta dhashaan ilaa 18 ee gobolka aan deganahay Oslo adigu way badnaayeen waxyaalo badan oo maaragtay saas sida isbitaalka inaan ka mid noqdo guddiga isbitaalka la taliyayaasha ah maamulka isbitaalka waxyaalo badan oo midba meel ah laakiin bulshada aan ku dhex noolaa iyo doorkaan ku lahay waa taas